shaqayn weligaa mishaara ku shaqayn qodobkaaga qor walaal weligaa mishaara ku shaqayn waxaad ku shaqaysaa qiyamkaaga akhlaaqdaada ku shaqee edabtaada iyo karaankaaga ku shaqee xeerasha looma shaqeeyo xeerasha ha u shaqayn waxaad u shaqaysaa qiyamkaaga nacam akhlaaqiyaadka sare ee insaanka u shaqee maxaa ka mid ah tusaale haddii 7 biira soo gal lagu yidhi shaqada 6 iska soo gal 6 inaad soo gasho abaal kagama sugaysid managerkaaga iyo mulkiilaha shirkadaada waxaad abaal kaga sugaysaa naftaada because naftaada aad sharfaysaa waxa la yiraahdaa dadna qaar xeerasha u shaqeeyaan dadna xeerasha laftigooga u shaqeeya dad aduu iyadoo 7 laymaneed 6 timaado aduu xeerku ku shaqeynaya because xeerkaad ka horeysaa marka haddii xeerasha aad hor socoto adiga xeerasha ku shaqeynaya deganaansho badan baad dareemi farxad badan baad dareemi waxaad qabanaysaa inaad raalli ku tahay baad dareemi meesha yareed joogtana xidig baad ka noqonay dadka kale ku daydaa mushkiladeenu waxa weeyaan markaa qof walba wuxuu iska eegayaa saacadda yar buu eegayaa mishaarka yar buu eegayaa 30 bisha waa maalmaha ugu jeceshahay dunida 10 bishana waa maalmaha ugu necebtahay dunida because bargo baa tahay marka eeg nolosheeniba waxaad moodaa inay si ila meerayso u tahay oo marna waxaad riinaysaa mishaarkii marna waxaad ka ordaysaa waqtigii so taa goor ma ka bixi karnaa mar baan ka bixi karnaa markaan ka bixi karnaa waxa weeyaan nolosha intaan jooginaa ma badno walaal haddaan ugu badano 6 ma jooginaa marka 6 ka soo doonada waad koraysaa waxbaad baranaysaa oo dugsi baa ku jirtaa oo waad rafaadaysaa amiin 25 wixii ka dambeeyay shaqo diyaar u tahay Soomaa okay so qayb ka tagto waa koriinkii qaybtan kale shaqada ha ka dhigan qayb ka tagtay iyaduna oo walwal kaaga tagto oo nacayb waxaad qabanaysaa aanad necbayn aanad jeclayn aanad niyad u hayn aas khasbayso dadkeena badankiisu waxay wax u qabtaan qushi bilka iyaga bixini waa ku maararoobayaa waan ku sug ma wax kale oo qabtaadii haysa qushi baa nolosheenii oo dhan ay ku dhamaatay waxaad arkay nin weyn oo 60 jir oo wali qushi ku shaqeynaya qushiya marka morally waa daalaysaa niyadaadii baa daalaysaa maskaxdaadii baa daalaysaa jidhkaagii baa daalaya naftaadii baa daalaysaa adoo isnicib baad dhimanaysaa hadhow waxaad qabanaysaa markaad dib u eegtana aan ku faraxsanayn sida ha u dhiman hadda fursad baa haystaa wax walba ku bedeli karta fursaddaas waxa weeyaan ama waxaad jeceshahay qabo ama waxaad hadda qabanaysa jeclow dadka ugu farxadda badan la dunidu maaha dadka waqtiga badan haystaya shaqooyin yaroo fudfudud haysta lacagtu si fudud ay ku soo gasho maaha farxad iyo deganaanshaha iyo wanaag iyo waxa uu qofku qabanayo inuu jeclaado dadku la shaqeynayo jeclaado meeshuu joogo ka shaqeynayo inuu jeclaado waxaas ma keenaan badnaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim caafimaadkaaga muhiim u tahay noloshaada muhiim u tahay waxay muhiim u tahay ahaanshahaaga iyo dadnimadaada muhiim u tahay marna waxaad karaameynaysaa meeshaad u shaqayso marna adigaa iskaraamayn waxaad leedahay meeshaan u shaqeeyay ka badan waxaan sharfayaa naftaydana waxaan ku sharfayaa inaanay arag baxeer ay aragta xeerka wax ka shisheeya waxaa layga rabaa 200 baa bixinaya waxaa layga rabaa 7 imanaya waxaa layga rabaa 3 saac inaan shaqeeyo saacad baan ku daraya I'm always going beyond mar walba tallaabaan ka sii horeynaya dadkaasaa qiimay le oo adduunyada jooga dadkaasaa markaa dadka tirsama ee adduunyada isbeddelka ku keenaya maanta ee dadka kalena saameynaya dadka kalena ay ku dayrayaan marka qodobkaasi waxa weeyaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim marna waxaad karaameynaysaa meeshaad u shaqayso marna adigaa iskaraamayn waxaad leedahay meeshaan u shaqeeyay ka badan waxaan sharfayaa naftaydana waxaan ku sharfayaa inaanay arag baxeer ay aragta xeerka wax ka shisheeya waxaa layga rabaa 200 baa bixinaya waxaa layga rabaa 6 imanaya waxaa layga rabaa 3 saac inaan shaqeeyo saacad baan ku daraya I'm always going beyond mar walba tallaabaan ka sii horeynaya dadkaasaa qiimay le oo adduunyada jooga dadkaasaa markaa dadka tirsama ee adduunyada isbeddelka ku keenaya maanta ee dadka kalena saameynaya dadka kalena ay ku dayrayaan marka qodobkaasi waxa weeyaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim